جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. markii ramadaan laga yimaado soon la soomo waxaa ugu fadli badan soonka bisha muxaram bishan soonkeeda ugu fadli badan taasi waxay tilmaamaysaa cidii kari karta inay bisha badankeed soomto intuu awoodi karo ruux inuu bisha ka soomo taasi fadiiladaas ay tilmaamaysaa waxaa iyadu si gooniyo mudnaan u leh laba maalmood oo maalinka bishu 9 tahay iyo maalinka ay 10 tahay maalinka ay 10 tahay waa yawm Ashura nabigeenna ka hor salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intaan la soo saarin jaahiliyadii carabtu way soomi jireen nabiguna sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday wuxuu u yimid qoysaskii yahuud ee magaalada Madiina deganaa oo soomaya maalinkaas markaasuu weydiiyey maxaad u soomaysaa waxay yiraahdeen waa maalinkii Ilaahay nabi Muuse badbaadiyay fircawnna halaagay saas daraadeed baan u soomaynaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam nabi Muuse annaga idinka xigna annagana idinka xaq leh waa soomay nabigu soonkeedana waa amray ummadda isaguna waa soomay ummadiisana waa amray nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka in la soomo intaan ramadaanka la waajibinin maalinka soonkeedu waajib u ahaa yawm Ashura soonkeedu waajib u ahaa waxaa dhacday maalin maalmaha kamida markuu waagu bariyay kadib inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ogeysiis bixiyay oo uu yiri ninkii aan wax cuninow maanta soon waa Ashura ninkii wax cunayowna maalinka inta ku laaban soomano oo afhayso yani cunto danba ha cuni waxaadiista ay ka qaadanayaan inay waajib ahayd ramadaan ka hor ramadaan markii la waajibiyay kadib waxay soonkeedu noqotay sunno noqday waajibnimadii baa laga soo dejiyay wuxuu noqday sunno cidii rabtana soomi cidii rabtana ay iska dayn karto waxaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka sugan marka maalinkaas yahuudu soomi jirtay isaguna soomay ummadana amray gadaal dambe nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri sanadka uu dhiman doono wax yar ko dhimashadiisa wax yar ka hor la in baqiitu ila qaabilin la asuumanna taasi'a nabi sallallahu alayhi wasallam haddaan gaadho sanadka soo socda waxaan soomi doonaa sagaalaadka bimacnaa maalinkii tobnaad oo dhaqan yahuuda iyo iyagu lagu arkay oo nabiguna waxay ahaan ugu yimid oo sida uu ku waafaqay ah yaa waxa gadaal ka yimid dhaqankii yahuuda iyo khilaafa iyo nasaarada nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri haddaan noolaado sanadka soo socdoon gaadho sagaalaadkan soomi doona culimadu waxay ka fahmeen tobnaadkii meesha lagama saarine sagaalaadka iyo tobnaadka la isla soomaya oo Ashuraana waa la soomi maalinka ka horeysay sagaalaadkana waa la soomay si loo khilaafo yahuuda loo khilaafo haddaba sida sunnada wax weeyaan in labada bari la wada soomo maalinka 9ka iyo maalinka 10ka hadday maalinka 9aad ku dhaafto Abdullah ibn Abbas waxa ka sugan inuu yiri maalinka 10aad iyo maalinka ka dambeeya soon bimaana si aad wali u khilaafto macna hadaad 9aadka ka gaari weydo oo 10aadka soonto 11aadkana ku dar marka sunnadu waa sidaas